Toronto waxay weligeedba ka mid ahayd magaalooyinka Kanada ugu qaalisan kirada guryaha, laakiin sanadahan dambe xaaladda ayaa ka sii dartay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay qabaan in sababo badan oo isbiirsaday ay keeneen in dadka deegaanka ay ku adkaato inay degaan guryo habboon oo ay ka bixi karaan kirada. xuseen aad baa u mahadsan tahay. sababaha waa badan yihiin, laakiin midda ugu weyn waxa waaye dad aad u fara badan oo dalkan Canada soo galay siyaabo kala duwan ku soo galay, gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario. sababta labaad waxa waaye muxuu ahay guryihii sidii loo dhisi jiray hore loogu dhisi jiray weli looma dhisino, waa yara dhismihii guryaha ayaa aad u yaraaday. sababta saddexaadna waxa waaye waxaan ku tilmaami karnaa in mataqaanaa dowladda gobolkan Ontario aan degannahay aysan xakamaynin kirada guryaha, inaysan xakamaynin. Dowladda gobolka Ontario waxay ujeedka xakameyn la'aanta kirada guryaha xilli hore ku sheegtay in maalgashadayaasha lagu dhiirigeliyo in ay dhisaan guryo cusub si loo daboolo baahida dhanka guryaha. Laakiin duqa magaalada Toronto xilli ay la hadlaysay dad joojiyay bixinta kirada sababo la xiriira kirada oo lagu kordhiyay ayaa sheegtay in arrintan xakameynta kirada ay tahay mid hoos tagta dowladda gobolka, balse ay dadaal ku bixinayso wixii awoodeeda ah. It is true that rent control is under the Tenant Landlord Act. It is a provincial matter. Waa dhab ayay tiri in sharciga xakameynta kirada guryaha uu hoos tago gobolka. Guryaha la dhisay wixii ka dambeeyay 2018 milkiilaha waxa uu doono ayuu kireen karaa. Waa musiibo sababaysa ayay tiri in dad badan guryaha laga saaro maadaama aysan awoodin kirada. Dadaalada dadka u doodaya wax ka qabashada arrinkan ayay ku sheegtay inay culays ku saari karto dowladda gobolka inay la timaado qorshe cusub oo lagu xakameynayo kirada. Cabashada korarka qiimaha kirada guryaha waa mid soo jiitamisay muddooyinkan dambe. Dadka qaar ayaa kira ahaan u bixiya in ka badan kala bar lacagta soo gasha bil walba. Laakiin dad badan waxay rumaysan yihiin in kiradu aanay ka badnaan 30% dakhliga qofka soo gala bishii. Dadka muddada deganaa magaaladan waxay sheegayaan inaysan weligood arkin qiimo koror midkan la mid ah. xuseen kirada guryaha aad bay qaali u noqdeen. waa sicir aan laga sheekeyn karin. ilaa muddona hadda waa nagu heystaa dhibaatadan sicirka ah. anigoo degan wadankan dhowr iyo 30 sano ma arkin sicirkan sida uu yahay maanta uu jiro. anigu waxaan doonayaa hadda 3 qol inaan dego ilaa dhowr 5 sano 4 sano waxaan raadinayaa sicir iqanciyo, mana helin ilaa hadda. marka waa la yaabanahay sicirkan saan u kacay. Inkastoo saameyntu ay tahay mid guud, haddana dadka qaar ayaa qaba in Soomaalidu ay si gaar ah u saameysay arrinkan. Soomaalida arrintan guryaha kirada qaali garoobay waxay u saameysay dadkoo dhan ay saameysay oo Canada degan, gaar ahaan Soomaalida. waayo Soomaalida sida aan ognahay qoysas ballaaran waaye oo midka ugu yar 4 carruur ay leeyihiin. marka 1 qol iyo 2 qol iyo 3 qol iyo xataa kuma filna. marka arrintaas Soomaalida aad iyo aad u saameysay. Lama oga xilliga ay wax iska bedelayaan xaaladan ku saabsan kirada guryaha, laakiin waxay dad badan qirsan yihiin inay tahay dhibaato taagan oo u baahan in wax laga qabto.